gudoomiyaha degmada Holodaag Ciise Maxamuud Guure uu marmay warbaahintan mustaqbal ayaa sheegay in ay ku dhib qabaan koox ku libisan dareeska ciidanka oo gaaf wareegaya gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha halkaas oo ay ka geystaan falal amni darro iyagoo dadka ka dhacay buu yiri mobilada iyo lacagaha ay sitaan gudoomiyaha waxa uu intaa ku daray in qaar kamid ah kooxahaasi ay gacanta ku dhigeen maamulkiisa iyagoo adeegsanaya buu yiri hub xiliyada habeenkii maamulka gobolka Banaadir waxa uu qorsheenayaa buu yiri sidii looga hortagi lahaa kooxahaasi maadaama ay ku soo badanayaan degmooyinka gobolka Banaadir aad ugu badneed dadka mobilada ka dhaca dadka rayidka ah waxaan u maleynayaa inay yihiin qolyo burcado iyagu ku qaraabanayo dareeskii qaranka ciidanka Soomaaliyeed waxay doonaan ha ahaadaan waa jiraan kuwa badan oo aan gacanta ku dhignay degmooyinka qaarna ay soo qabteen iyagu adeegsanayo hub gaar ahaan bastooladu habeenkiina inta badan dadka ay dhacaan oo mobilada iyo ay ka dhacaan marka mana ahan kuwa shaqana kule raadna kule maxaa la yiraahdaa ciidanka Soomaaliyeed oo kuwa ayaga burcada oo ka dilaacay haddana waxaan maleysaa in si guud gobolka Banaadir qorshe loo wada tago aan rajaynaynaa cid aan ku qabanna falkaasna sharciga aan horgeyn doono marka way iska jiraan dhibaatooyinkaas Ciise Maxamuud Guure gudoomiyaha degmada Holodaag mustaqbal waxay weydiisay waxa ay ka qabteen cabashada ka soo yeeraysa Galileeda maadaama ay aad u burbursan tahay wadada isku xirta isgoyska Bakaaraha iyo kan dabka ka oo muhiim u ah ganacsiga waxa uu ku warceliyay waan ognahay cabashadaasna in badan ay noo timid qolyaha gaadiidleyda waan is aragnay iskaashatada gaadiidleyda ah guddiga ganacsatada suuqa Bakaaraha waan iska aragnay innaga hadda awood uma lihiin wadadaas ku dhisno laakiin kaalin aan ka qaadan karnaa haddaan nahay maamulka degmada iyo gobolka Banaadir intaba marka waan rajaynaynaa hadduu Ilaahay raad insha Allah tacaala hadda waxaan soo wadnaa wax dhiig joojin ah inaan godka weyn aasno kadibna aan maxaa la yiraahdaa dadka iyo contribution inta ka qayb qaataan haddii dayactir lagu sameyn karo la dayactiro haddii kulligii la dhisi karo laami laga dhigi karana laami laga dhigo marka hadba tabarda dhaqaale intay gaarto aan wax uga qaban doonaa hadduu Ilaahay raad insha Allah gudoomiyaha waxa uu intaa ku daray in maamulkiisu ay ku hoolan yihiin sidii loo yareyn lahaa ciidamada magaca dawladda u qaata dadka lacagaha canshuuraha kuwaas oo inta badan dadka ay ka cawdaan maamulka degmada waxay ku hoolan yihiin buu yiri sidii loo sixi lahaa canshuuraha dadka laga qaado deetana lacagahaasi loogu dhisi lahaa meel ay ka mid yihiin jidadka degmada oo aad u burbursan ciidan tiro badan oo meel ka socdaan aan la garanaynin marka in la xadido la yiraahdo ciidankan in la ogaado suuqa Bakaaraha aaday maxay yihiin in markaa maxaa la yiraahdaa kadib markaas la soxo systemka canshuuraha kadib canshuuraha hadii la qaado in lagu soo celiyo deegaankan oo percentage wadooyinkiisa lagu dhiso amniga suuqa lagu sugo waxyaabahaas oo dhan laakiin hadda waxa u maleysaa inta badan iyagu ay ka cabanayaan ciidamo kala duwan isla yihiin yani meel ay ka socdaan aan la garanaynin magac dawladeedna sheeganaya dadkana dhibaataynaya qaarkood aan ognahay inaysan dawladda ka tirsaneen ay qaarkood iska yihiin ciidamo maleeshiyaad ah oo laakiin shaatiga dawladda soo gashtay annagana qorshe guud ah nooga dagsan oo hadda aan rabno inaan iska kaashano annaga booliiska iyo nabadgelyada qolyaha hay'adaha amniga si looga hortago dadkaas dadka dhibaataynaya